kulanti aqoon idil ahaantiiba daawadayaal ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena maanta waxaad kala socon doontaan channelkeena Nahrays Media. Barnaamijkeenuna maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa xanuunka ay Soomaalidu in muddo la noolayd kaas oo loo yaqaan prank. Waa Soomaalida oo khalad fahantay adeegga prankiga kana talaabiya xadkii. Waa bulshada Soomaaliyeed oo si aad ugu xidhan adeegga pranka kuwa daawada iyo kuwa sameeya labadubana ay leeyihiin. Waa adeegga prank oo horaantii sanadii 2010 ka hirgalay waddanka Mareykanka taas oo ay tijaabiyeen dhalinyaro Mareykan ahi. Barnaamijka prank ayaa waxa uu yahay in qofka laga duubo kaamirada qarsoon iyada oo laga sameynayo qofkaas wax yaab geliya amaba uu ka cadhoon karo. Haddaba taa beddelkeeda waxa bulshada Soomaalida qaarkood ay sameynayaan waxyaabo dhaqan xumo ama fawaaxish ku ah diinteena Islaamka iyo dhaqankeenaba. Sida la wada ogyahay waxa baraha bulshada lagu faafiyay fiidiyoyo anshax xumo ah kaas oo ay ku sheegeen uguna yeedheen waxay yidhaahdaan waa prank. Waa Soomaalida oo guud ahaanba aan u isticmaalin adeegga prank sidii loogu talagalay gaalada bilaadiintahi in aan loo isticmaalo. Waxa in muddo baraha bulshada haystay sawirro dumar fuulaya ciyaar yaryar iyo ciyaar rag waaweyn oo fuulaya dumar yaryar. Isku soo wada duubo waxaan la garanayn sababta ay wadaadada Soomaaliyeed uga hadli waayeen adeegga prank ee bulshada la nool. barnaamij lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa inaad channelkeena Nahrays aad subscribe garaysaan, share garaysaan, lana wadaagtaan asxaabtiina. Waxaan idin ballan qaadayaa 10 qof ee ugu horeeya ee comment ka bixiya channelkan in aan u samayn doono shout out. mahadsanid.